Assalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu. Soo dhawaada walaalayaal, waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso aad iyo aad u xanuun badan. Qisadan waxay ku saabsan tahay gabadhan magaceeda waxaa la dhahaa Muniiro oo qolka Daahir Cali soo qabsatay oo rabtay familkeeda meeshaas inay ay ka dacweysay si yacni familkeeda loola xiriiro oo yacni gabadha dhibaatada ay ku hayaan ay uga dhaafaan. Marka horta Muniiro maxaa la dhahaa ilaahay qalbigeeda ha u adkeeyo. Wallaahi dhibaato fara badan way soo martay. Muniiro Sacuudiga lagu dhalay, hooyadeed iyo aabeed Sacuudiga degnaayeen. Yacni aabeed wuxuu iska ahaa xamaalato. Kadib waxay dhahday anigoo 12 jir ah ayay hooyaday waxay dhahday program waxay keentay inay samaysato Facebook oo magacayga iyo magaca walaashay ay ku samaysatay. kulay 2 Facebook iyo 1 Facebook wuxuu yahay Facebook inay samaysatay magacyadan ay ku samaysatay ayna dhahday nimanka meeshaan nimanaan soo shukaaminaya adinka shukaansi ma taqaaniin. walaasheed marka way ka weyn tahay markaas 16 jir meelahaas waa kuleysaa u malaynayo. ayada marka waxay dhahday xilligaas aan 12 sano jiray. waxay dhahday nimanka idin soo shukaamina adinka shukaansi ma taqaaniin aniga soo diyaarinaya niman fiican kadib ninka idin keeno ayaa guursanaysiin. Muniiro fikirkaas waxay dhahday waa ka soo horjeestay oo waxay dhahday maxaa la dhahay hooyaday inay qalad sameynaysan waan u jeedaa. hooyo waxaan dhahday maasha Allah horta iyadoo ilmo ah baa waxaan ku dhahay qaladka ay diiday. qof damiir leh waaye. hooyo waxaan dhahday waxaa sameynaysid waa qalad aniga ma aqbalaayi inaad maxaa la dhahay adigoo oo hooyo ah oo family ah oo lagu qabo oo aabahay uu joogo anaga niman noo soo shukaamiso oo niman dadeed la soo sheekaysato. waxay dhahday waxaa aqbalaya ma ahan aniga waxay dhahday fikirkaada waa ka soo horjeedaa aabahayna waa kuu sheegaa. walaashay waxay dhahday way ka aqbashay way la heshiisay inay maxaa la dhahay nimanka ay soo shukaamiso ay walaashayna waxaa ku dhahay iyadana nin u keento. aniga waa diiday dhahday hooyaday markaas waxay dhahday markaasayba cadow iyo aragtayba maadaama fikirkeeda aan diiday iyo waxaa falka ay samaynayso falkina waa ku dhaqaaqdayo. waxay dhahday maalin kasta nimanay la sheekaysanay ayadoo yacni qiil ka dhiganaysa inay annaga niman noo raadinayso. nimanaa Oroba idinkaga keena Oroba Yurub waaye kuley intaan maxaa la dhahay saas u fahmaynin Yuruba niman idinkaga keena oo waxaan ku dhahay niman fiicana idin keena. kadib marka waxay dhahday dadka inta ka dhigda soo dhawaada. waxaa dhahday in walaashay ay nin u keentay ninkii ku dartay oo 3 bilood la qabay. walaashayna ay dhahday maxaa la dhahay ninkii uu dhahay waxaa qaldan qoftaa la hadlayay ma tihid qoftaa 3 bilood la sheekaysanayay intaas yacni aan shukaansanayni adiga ma tihid oo bini aadan tahay dareenkaada xitaa qof aad taleefon kula sheekaysanaysay iyo qof oo aadan ka siino hal mar dig cirka ka soo dhahay. ninkii wuu soo furay wuxuu dhahay walaali nagu kala wadnaa salaamo. kadib markii intaas laga soo tagay waxay dhahday maxaa la dhahay aniga waxay dhahday fikirka anoo diidan oo hooyadayna ay dhahaysa caasi waalideynaa tahay oo tanaa tahay oo aabahayna fikir xun aabahay habeenkii u imaanaya dhahday anagana lama sheekaysanaayo dabcan asoo daalan u imaana qolkiisu iska galaa islaantii lagula sheekaysanaa islaantiina ay dhahday heblaayo caasi ugu tahay warkayga ma maqasho saa ma maqasho adi qofkii ugu horreeyay warkuu sheegay aaminay aabaha badanaa hooyadu aamini jiray. hooyadana waxaan ku dhahay sasay u dhaqmi jirtay. kadib waxay dhahday waa weynaanay waxaan ku dhahay waxay dhahday waa shaqaa bilaaway waxayba noqotay qoftu cidda ugu fiicanay noqotay gabadha sida ahayd inaa aniga shaqeeyay dhahday oo ciddii waxay dhahday aan garab qabto oo waxaan ku dhahay dhoofisay walaalkeedna hooyadeed iyo aabaheed uu dhoofiyey adi hooyaday iyo aabahay iyo walaalkay anigaa dhoofiyey dhahday Yurub ay u dhoofisay ilaa iwaaga ilaa ay hadda waxay dhahday 10 sano waxay dhahday ani ayaga isma arkin 10kaas sano ilaa iyo yaraantaydii dhahday adi 15 sano iska dheh 15 sano gabadhaas dhibaatay ay maxaa la dhahay islaantaas ay ku haysaa. sharmuuto inaa ahay magaalada ii gelisay dhahday anigoo sharaf leh oo weligay nin salaamu calaykum dhihin. waxay dhahday hal il ibra ka ahay dhahday stress dartiisa saa u fikiraayay iskula hadlaayay oo waxay dhahday hooyaday waxay dhahday sumcadeeda meel kasta qof kastoo ka saayo way soo wacay gabadhan waxaa la caasi ay ugu tahay saan duurkay gashay. hooyada waxay ballan ku qaaday dhahday xilligaas inay iwaalayso 2 gabdhood ayada la dhalatay waxay dhahday ayadaa waashay ayadii hooyadeed ayeedeed awaaleenay dhahday. marka waxay dhahday anigana liiska waxay igilisay inay iwaasho waagaasay ballan ku qaadabo. waalidina waxay dhahday waaba ila maagan tahay ilaa hadda waxay soo dhahdaa risaale ii soo diraysaa ma xanuunsanin miya weli ma caafimaad qabtaa. marka waxaan dhahaya dhahday maxaa ii soo samaysa adiga